kulan ay magaalada Muqdisho ku yeesheen odayaasha dhaqanka waxgarad siyaasiyiin iyo aqoon-yahanada mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee dega Jubbooyinka iyo gobolka Gado ayay kaga soo horjeesteen warqadii ka soo baxday Jubbaland ee maamulka ay ugu magacawday gobolka Gado. aqoon-yahanada siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka kulanka yeeshay ayaa tilmaamay in go'aanadii ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaran ay tahay kuwa muddo kororsi u sameynaya madaxweynaha Jubbaland oo bilooyin ay u harsan yihiin, waxaana ay tilmaameen inay si adag u diidan yihiin. qaar ka mid ah odayaasha iyo siyaasiyiinta kulanka ka hadlay ayaa sheegay in shacabka reer Gado aan lagu khasbi karin maamul aysan rabin, waxaana ay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ugu baaqeen in laga shaqeeyo sidii doorasho loogu qaban lahaa Jubbaland. asagii baa waqtigiisii dhamaaday, waxaanu u fadhinaa doorasho xor iyo xalaal ah oo ay dadka Soomaaliyeed ku qanacsan yihiin, oo hadday baarlamaan leeyihiin iyo haddii madaxweyne ay leeyihiin ayaga ay ku soo doortaan in la qabtaan rabnaa. waxaan rabnaa dowladda federaalka arrinta iyada halkaas weeye wadadii ay lahayde hawayeysan ku mashquuleen inay waqti kororsatay iyo in nin ay jeebka gashatee dadka shacabka codkiisa ha tixgeliso. hadday tixgelin weydo cawaaqib xumadii ka timaada dowladda federaalka oo hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh ayaa ay hoos imaanaysa oo ka jawaabay oo dhibteeda yeelanaya. waxaa ilaahay mahadii ah dadka reer Gado inay og yihiin ujeedada warqadaas laga leeyahay, ayna qaadanaynin ayna qaadan doonin. maamul warqad uusan hirgelin karin qoraya dadka isku diraya, dadkaana dad isku diri kara ma aha, waa dad isku duuban, cadowgoodana uu mid yahay, xabiibkoodana uu mid yahay, waana garanayaan cadowgooda iyo xabiibkooda. taas waxaan u sheegaynaa dowlad goboleedka maxay ahayd ee Kismaayo ku kooban iyo dowladda dhexe labadaba waxaan u sheegaynaa waanu diidnay warqadaas. dalkanagii deegaankanagana kama shaqaynaysa, dadka iyagana wax khilaaf ay ka dhex keenaysa ma lahan, waa u cadaynaynaa. madaxweynuhu waa madaxweyne Soomaaliya, waa xogaal meel kastoo Soomaali joogto waxa ka hadlaysan uu og yahay. horey buu soo xukumay, hadduu mar labaad ku soo noqdo meesha. Jubbaland dhibaatada ka jirto oo muddo dheer oo 12 sano ka jirtay xogaal buuyi. ninka halkeeda laga rabo inuu horseed u noqdo asaga. maxay ummadan baa 12 sano waxay ku jirtaa ciqaab inta ka badan dadka ma dulqaadan karo. waxaa marka loo baahan yahay madaxweynuhu inuu arrintaas xal u keeno. waxaan kaloo ognahay muddo badan baa hadda reer Gado ay cabanayeen madaxweynaha ilaahay gool baan ku fidinay noo ibo. ilaa hadda goosha ayay kama jawaabin, mana imaanin. taasna waa mid u taalo weey asaga. badda yar xeebta ahaad ku go'doonsan tahay dhul 600-700 kiiloomitir degan baad rabtaa dacay inaad geliso mana kuu suura geliso. dowladda xasan waxaan leeyahay dowladnimadaadu waxay ku jiraysaa marka tiirarka dowladnimada ay ku dhisan tahay aad sidooda u ilaaliso. bulshada reer Jubbaland iyo gaar ahaan reer Gado xasan sheekhow nuguma khasbi kartid maamulka Kismaayo, ama wasiirkaaga ha hambalyeeyo ama yuuna hambalyeyn. xubnoodo waxna uma naandhiiban, waxna heshiis kuma nihin, wax uu naga hadleeyo ma ahana wax wanaagsanna kuma haysano. qolo kaleetana nuguma khasbi karto, waa walaalkayo nasabadaanu isugu nimaadnaa. wuxuu xubeeyeyna aakhira lagala xisaabtamayo adduunkaba. ma reexaan maamul ma dhisanaynaa. ugu dambeyntii shirka waxaa laga soo saaray war-saxaafadeed ka kooban dhowr qodob. dowladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaanba u sheegaynaa kow in maamulka Kismaayo uu muddaxileedkiisu ku eg yahay bisha Agost 2023 isla markaana aan la aqbali karin in lagu daro waqti hor leh oo aan ku imaan farsamo doorasho la isla ogolaaday ee ay taasoo sii kordhin karta khilaafka iyo kala qaybsanaanta siyaasadeed ee ka jirta Jubbaland. labo in loo baahan yahay doorasho ka dhacda Jubbaland taasoo maamulkeeda, amnigeeda iyo goobta ay ka dhacayso laga heshiiyo ka hor Agost 2023 lana abuuro jawi ay dadka reer Jubbaland si xor iyo xalaal ah ugu dooran karaan xildhibaanadooda iyo madaxda hogaaminaysa maamulka
jubbaland cusub saddex in go'aan kasta oo iska inatiraya tabashooyinka bulshada ee lagu taageero maamulka Kismaayo ay xagaldaacin doonto qorshaha hawlgallada lagu xoreynayo deegaanada ku jira gacanta kooxaha nabadiidka afar inaanan aqbali karin magacaabis kasta oo ka timaada maamulka Kismaayo taasoo looga gol leeyahay abuurista khalkhal amni iyo iska horkeen bulsho isla markaasina caqabad ku noqon karta nabadda iyo wada noolaanshaha ay ku jiraan dadka deegaanada Jubbaland gaar ahaan gobolka Gado inaysan marnaba suuragal ahayn in muddo kororsi horle uu ka dhaco Jubbaland haddii xaqiiqada la iska indhatirana dadka reer Jubbaland ay qabsan doonaan doorasho xor ah oo ay ku qabsan doonaan meeshii ay nabad u arkaan isla markaasina ay ku dooran doonaan madaxdooda Sada Cabdi Taaliil Universal TV Muqdisho